السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciyaaraha ka socda waqooyiga America ayaa lagu waramayaa in ay noqdeen kuwa la iskugu diro fariimo sidoo kalena ay isku bedeshay goob siyaasadda dunida la iskugu tusaalayo. ciyaartii xalay ay ku guuleysteen kooxda Spain in ka badiyeen kooxda Portugal ayaa la sheegay kooxda Spain in ay mar kale muujiyeen mowqifkooda qadiyadda reer Falastiin. Waxa la arkay calanka Israa'iil sheeko yaab la ayaan idinkaga diyaariyay barnaamijkaad ku maqli doontaa. qodobka xigana barnaamijka waxaan idinku haynaa maxkamadda racfaanka dalka Faransiiska ayaa maanta laga filayaa go'aan taariikhi ah inay sii deyso oo ay fasaxdo haweeneyda xaq jirka ee sida weyn muslimiinta iyo soo galootiga u dhaleecayn jirtay Maria Le Pen ayaa godkeeda biyo ugu galay. siyaasadda ayaa la filayaa in ay mar kale darbaxa culus ka soo gaarto. dambi weyn iyo fadeexo weyn ayaa lagu haystaa iyadoo faahfaahanayaan idin hayaa. qodobka xigana barnaamijku waxaad ku maqli doontaa Iiraan ayaa la sheegay inay garaacday oo ay beegsatay markab maraya Hormuz oo diiday inuu qaato amarka ciidanka dalka Iiraan ee ciidanka badda. faahfaahin la xiriirta dhacdadaas iyo qodobo kale ayaanu barnaamijka galabnimo maanta soo dhawaada mar kale. magacaygu waa Mustafa Cali, halkana waa Kow Somali Media. ciyaaraha adduunka ee ka socda waqooyiga America ayaa isku bedelay kuwa la iskugu diro fariimo. waxaa ku hareeraysan hadallo badan iyo sidoo kale ismaandhaaf weyn. kooxaha taageerayaasha kooxaha qaar iyo xitaa ciyaartooyda iyo tababarayaashooda markay North America soo aadayeenba fariin kale wateen. kaliya may soo aadin ciyaar, waxay soo aadeen aragti ay aaminsan yihiin qadiyad inay ku soo bandhigaan. Spain oo wadanka sida weyn u taageersan reer Falastiin aadna uga soo horjeestay dambiyada laga galay reer Falastiin iyo qaladyada ka dhacay Israa'iil iyo dambiyada waaweyn ay gashay ay aad Spain uga soo horjeeday. dowladda Spain, ra'iisul wasaaraha Spain Nicolas Sanchez Pedro Sanchez aad buu uga soo horjeeday siyaasadda Netanyahu ee Falastiin. laakiin xalay ciyaartii Spain iyo Portugal waxay ciyaar taariikhiya. Ronaldo oo kamid ah ciyaartooyda adduunka ugu magac weyn oo la arkay ciyaarahan intuu ciyaarayay isagoo bisinka ku bilaabayo kubadda markuu tuurayo. ciyaartooygan wuxuu ka haray ciyaaraha adduunka si kooxdiisa Portugalba, laakiin ninka wuxuu kamid ah dadka sida weyn Falastiin u taageersan. kooxdiisa aad buu uga dhex buuqday. laakiin xalay Spain wadan dhan oo Falastiin taageersanaa badiyay. markay ciyaarta dhamaatay oo ay badiyeen hal mar waxay la soo baxeen calanka Israa'iil oo istilaab saaraya iyo calanka Falastiin oo ay leeyihiin free Palestine, Falastiin ha xuruudo. calanka Israa'iil istilaab saarteen macnaha gumaysta waayay leeyihiin. macnaha waxay ahayd heerka ay ka gaarsiin qaar kamid ah dalalka Yurub inay ka sii dareen xitaa kuwa maaragtay Carabta iyo muslimiinta kale ila daawo. waxayba la soo baxeenba taageerayaasha calanka Israa'iil ilaa Israa'iil ha burburto ay leeyihiin. xaafadii ay deganaa hoteelada daaqadii calanka Falastiin ay ka soo meeshii oo dhan Falastiin qabsatay. waxa isleedahay ma koox Falastiina ayaa u soo baxday quarter finalki. ciyaarahan Portugal waxa ka badiyay ma baahana leedahay Spain. waxa ka badiyay ba isleedahay kooxdii Falastiin ee ciyaaraysa ilan koox Falastiin ma soo bixin ciyaaraha adduunka. laakiin waxa matalaya kooxihii kale adduunka. kooxo badan ayaa qadiyadda Falastiin matalay. ummado kale u adeegay. Morocco, kooxda Morocco, kooxda Masar, Spain, kooxo badan oo soo baxay ayaa waxay u taageen qadiyadda Falastiin. calanka Falastiin ciyaaraha adduunka aad buu ugu muuqday. Israa'iil dambi kastay gashay si kastay u awood sheegatay qalbiyada dadka adduunka ku nool ayuu Ilaahay u furay muslim iyo gaal qadiyadda reer Falastiin. maanta wax badan lagu ogyahay dhibka haysta Falastiin oo muddo badan haysta. waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka. maxkamadda racfaanka dalka Faransiiska ayaa la filayaa maanta go'aan taariikhiya in ay gaarto oo waxa hor yaala abiil ama racfaan ay qaadatay xisbiga Maria Le Pen oo haweeneyda la filayo sanadka 2027 inay madaxweyne ka noqoto dalka Faransiiska. Emmanuel Macron iyo xisbigiisa qofka challenge gareynaya ama la tartamaya
hadda macnaha ugu muuqda Faransiiska waa Marine Le Pen laakiin musiibo weyn baa ku dhacday gabadhan waxay aad uga soo horjeedaa dadka soo galootiga muslimiinta aad bay u dhaleeshaa masaajida macnaha aad baa loogu dhib qabaa afdheerideeda xijaabka dagaal bay ku wadaa wax walba islaamnimo muujinay laakiin sidii marba meel ugu dhacaysay hadda iyadiyaa godkeeda biyo ugu soo galeen waxay ku jirtaa eeg qofka ummadda dhibo asna wax ku dhaco waliba diintan qofka la dagaal iyo dadkeeda meel kale lagama soo marine dacwo hadda ku socotay iyadii waxaa la leeyahay lacag fanda ay bixiyeen baarlamaanka Yurub ay iyada xisbigeeda ku maqan waxaa la ogaaday sanadka 2004 ilaa 2016 lacag ay si qaldan u isticmaalayeen budget dhan loo dhiibay ilaa baarlamaanka Yurub ay ka tirsanayeen lacagtii ay maamulayeen ay si qaldan u isticmaalayeen xisbigeeda haddii lagu helo dambigan oo maanta maxkamadda ay soo saarto barnaamijkeena caawan ku soo qaadan doona Marine Le Pen waxaa ku dhacay dharbaaxa siyaasadeed oo aysan weligeed ka kaban doonin waa sii duqoobaysaa xitaa haddii waa soo kabanaya oo soo bilaabaya dhibaato ku noqonaysaa maxay tahay xukunka maxkamadda ay ridayso oo la filayo looyarada iyo dad sharci yaqaanada waxay leeyihiin Marine Le Pen xukunka wuxuu ku keeni doonaa inaysan awood u yeelan doonin Aljazeera iyo warbaahinta dhan baa qorayso sanadka 2027 doorashada dhacayso Marine Le Pen waa ku daysay ma u sharxano cunsuriyiinta Yurub marka ee soo galootiga muslimiinta ku mashquulsan iyaga hadda dhibaato haysata waxaa ka mid ah Nigel Farage hogaamiyaha mucaaradka Britain oo xisbiga Labourka kuraasteeda qaybo badan qaatay oo doorashada weyn markay gaarto la filay dadka ugu muuqdo inuu ka mid noqdo eedeymaha ku hareeraysan waxaa lagu haystaa waa hogaamiyaha xisbiga Reform UK lacag hadiyad ah qaali ah oo uu ka qaatay nin bilyaneer ama alqabeena ayaa waxaa la leeyahay lacagtan soo caday waxanaaqay hadii la weydiiyo uu caraysay xanaaq meel walba taagan warbaahintu waxay leedahay waniyo lacagtan soo caday wariyaasha waa imtixaan moogta odayga meel galuulay marka Ingiriiska Mareykanka Faransiiska meel kasta cunsuriintu waa lagu dhageeyaa oo hadda Trump crypto lagu haysta isaga qoyskiisa inay uga faa'iideysteen madaxtinimadii laakiin Faransiiska iyo Britain Marine Le Pen maanta horta waa ogaan doonaa go'aanku wuxuu noqdo laakiin qofka cirki maraysa hal mar bay hadda god gashay waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka ahna qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena galnimo maanta Iran ayaa la sheegay inay garaacday markab diiday digniin isxigxigta oo loo jeediyay waa loo digay the Middle East ay warbaahinta kala qorayso markabkani wuxuu iska indhatiray warningka ama digniinta loo jeediyay waxa uu marayay meel aan ka fogeyn badda Oman Hormuz digniintan waxay ku socotay in markabkani uu istaago oo uusan soo xadgudbin laakiin waa uu ka gudbay lama sheegin ilaa hadda qasaaraha gaaray markabkaasi inta uu la egyahay Iran ay garaacday Iran waxa ay u ogolaatay Japan in maraakiibteedu ay gudbi karaan si bilaash Hormuz waxayna Iran muujinaysaa in iyadu ay tahay mid u fasaxaysa dawladii ay doonto mid ay doontana u diidayso mid ay doontana lacag ka qaadayso Oman iyo Iran hore waxay isuba garteen inay lacag ka qaadaan maraakiibta doonaysa Hormuz inay isticmaalaan laakiin Oman ayaa gadaal iska bedeshay oo iyada sheegtay in aysan hadda bilaabayn lacag ka qaadista maraakiibta maraysa Hormuz Mareykanka ayaa si weyn uga soo horjeeda aragtida in Iran ay lacag ka qaado maraakiibta Hormuz isticmaalayso Mareykanku waxa uu filayaa 60 maalmood ee lagu heshiiyay kulankii Switzerland in lagu gaaro heshiis 60 maalmood gudahood laguna gudbay xiisadda Mareykanka ee Iran u dhaxayso waxaase muuqata 60kaas maalmood intaan la gaarin ka hor in labada dhinac uu khilaafkooda si adkaanayo meel adag si gaarayo Israa'iil ayaa la sheegay Netanyahu iyo kooxdiisa inay ka soo horjeedaan heshiiska Iran iyo Mareykanka ay wada galayaan halka Donald Trump mar uu rabo xiisadda Iran isaga inay soo afjaranto oo laga gudbo aqalka cad wuxuu mar walba ku celiyaa in heshiiska rajada Iran iyo Mareykanka uu meel wanaagsan marayo laakiin shalay Iran waxay aad uga carootay hanjabaad mar kale uu Mareykanka Iran u hanjabay oo ahay Trump oo sheegay in Iran laga weyn doono qariirada ilbaxnimadii la weyn doono 90 milyan taariikhdooda mugdi ay galayso Iran ayaa isla markii ka jawaabtay oo sheegtay hanjabaadaha Trump inay yihiin kuwa aan macno ku fadhinin oo wax laga qoro uusan Trump lahayn saaxiibada qiimiga leh xiisadda bariga dhexe ayaa wali si adkaanaysa iyadoo Israa'iil ay duqeyn ka wado koonfurta Lubnaan xalay iyo shalay mar kale Israa'iil si daran ay u duqeysay koonfurta Lubnaan
dad badan ayaa la soo warinaya in lagu dilay koonfurta dalkaasi iyadoo Iiraan arrinta ay sheegtay inay tahay mid aan la aqbali karaynin oo ay si degdeg uga jawaabi doonaan.